galab wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan u diyaargarooba wararkeena galabnimo waa Jimco waana 21 May 2022 wararkeena galabnimona qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka qaraxyo xoogan oo magaalada Muqdisho ka dhacay iyo gudoomiyaha deegaanka Garas Baale iyo xubno kamid ah qaraxyadaasi ku dhintay xogo ku saabsan qaraxyada dhacay faahfaahintooda ayaan soo qaadan doonaa u diyaargarowga shirka wadatashiga doorashooyinka Muqdisho ka soconaya xilli Muqdisho weli aysan imaan labada madaxweyne ee Puntland iyo Hirshabelle waa maxay sababta ugu weyn ee xubnahaas ilaa hadda Muqdisho u imaan laayihiin maxaase ka jira in madaxweyne Dani oo wali uu diiday ka qaybgalka shirka xogo ku saabsan ayaa idin la wadaagi doonaa Ra'iisul Wasaare Roble Qudus waxa uu wada kulmadii ugu dambeeyay ee qabsoomida shirkaas isagoo dadaal badan ku bixinaya in shirka uusan fashilmin maalinta Sabtidana uu qabsoomo dhaqdhaqaaqa Ra'iisul Wasaare Roble iyo xafiiskiisa oo kulmo isdabajooga ka soconaya ayaan soo qaadan doonaa Somaliland oo sheegtay xeelad ka duwan mid uu sameeyay madaxweyne Farmaajo haddaba waa maxay xeelada Somaliland hadda ay soo bandhigtay howlgal lagu soo qabtay maleeshiyada hubeysaneed macmuuslada ay ka dagaalantay Johor maanta Jimcaha la sameeyay waxaan kaloo soo qaadan doonaa ergigii madaxweynihii hore ee Ghana oo iska diiday xilka midowga Afrika ee Soomaaliya magacaabay ahaa in Soomaaliya uu ka noqdo ergeyga gaarka ee midowga Afrika qodobadaas kuba kale ayaan soo qaadan doonaa qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe noo dhig gambarkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada gaarka ee halkan ku baahino aan ku bilaabay qarax ayaa goordhabeed ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho waxaana qaraxaasi lagu qaareejiyay ama ku dhintay gudoomiyaha deegaanka Garas Baale iyo xubno kale mas'uuliyiin oo kamid ah maamulkaasi qarax ayaa la sheegay inuu geystay khasaaro xooggan oo sababay dhimasho dhaawac ah waxaana la soo warinayay in qaraxan mas'uuliyadiisu ay sheegatay kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya qaraxan oo ahaa mid miino ayaa waxa lagu qaareejiyay Allah u naxariistay gudoomiyaha deegaanka Garas Baale Cabdiraxmaan Garyare iyo laba kamid ah ilaaladiisa ayaa qaraxaasi ku dhintay gudoomiyaha ayaa waqtigii qaraxa la beegsanayay wuxuu ka soo baxay salaada khudbada ama salaada Jimcaha ee khudbada oo ku soo dugtay masjid ku yaala isla deegaanka Garas Baale afar bil ka hor ayaa isla deegaankaas waxaa lagu qaareejiyay gudoomiye ku-xigeenka ee dhanka amniga deegaankaasi iyo gudoomiyihii dhalinyarada deegaankaas ayaa qarax ka dhacay deegaanka Garas Baale lagu dilay isla afar bil kadib waxa maanta la qaareejiyay gudoomiyihii deegaanka Garas Baale asagoo ka soo baxay salaada khudbada ayaana qaraxani lagu laagtay isla bartamaha deegaanka Garas Baale Garyare wuxuu kamid ahaa aasaasiyaasha deegaankan wuxuuna gudoomiyihii ugu horeeyay ee deegaankan xilka ayaa laga qaaday isla 2 sano ka hor ayaa mar kale xilkaasi loo magacaabay Garas Baale waxay kamid tahay deegaanada dhacaduleedka magaalada Muqdisho waana deegaano soo kabanayay maalmihii dambana xubnaha halkaasi ka soo jeeday ee dawladda federaalka ku jira ayaa wada olole xoogan oo ay ku doonayeen in deegaanka Garas Baale sidii degmo buuxda loogu aqoonsan lahaa maadaama ay sheegeen inay soo buuxisay dhammaan shuruudaha degmo loogu baahnaa gudoomiye Garyare ayaa sidoo kale lagu xasuustay inuu ahaa ninkii aas-aasay deegaankaasi iyo sidoo kale hirgeliyay dhismayaal casri ah iyo warshado laga hirgeliyay deegaanka Garas Baale qaraxa ka dhacay deegaankan lagu dilay gudoomiyaha deegaankaasi Cabdiraxmaan Garyare ayaa mas'uuliyadiisa waxaa sheegatay Al-Shabaab war ay ku qoreen baraha warkooda ku faafiyaan Al-Shabaab waxay ku sheegeen in qaraxaasi ay ku qaareejiyeen gudoomiyaha deegaankaas iyo xubno kale oo mas'uuliyiin ah maamulkaasi ku jira waxayna Al-Shabaab sidoo kale ay ku hanjabeen inay sii wadi doonaan beegsiga xubnaha mas'uuliyiinta magaalada Muqdisho hadii aan ku soo noqono waxa ka soconaya abaabulka iyo waliba sida uu qabsoomi lahaa shirka dawladda federaalka ee maamul goboleedyada shirkan ayaa qorshe u ahaa inuu dhaco maalinimada Khamiista ee shalay hase yeeshee dib ayuu u dhacay waxaana la filayay in Muqdisho ay soo gaaraan madaxda kale maamul goboleedyada inkastoo weli ilaa hadda ay soo gaareen xubno ku dhow xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in ay rajo weyn ka qabaan in gilinka dambe ee Jimcaha maanta ilaa maalinta Sabtida oo Muqdisho uu soo gaaro labada madaxweyne caasimadda ka maqan Ra'iisul Wasaaraha xil gaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa kulamo isdabajooga la qaadanaya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir xubnahan ayaa Muqdisho ku sugan saacadihii la soo dhaafayeen xafiiskiisa iyo hotelka Digaala kulamo gaargaar ku wada qaadanayeen waxaana wali la ogeyn waqtiga rasmiga imaanayaan labada madaxweyne ee Puntland iyo Hirshabelle kuwaas oo caasimada ka maqan
kulan casho ah ayuu xalay ra-iisul wasaaraha uu sameeyey xubnahan ee saddexda madaxweyne iyaga oo si guud iskaga arrinsaday furitaanka shirka waxaana soo baxaya in xal loo raadinayo khilaafka doorashooyinka inkastoo wararka qaarkood ay sheegayaan in weli xitaa muran uu ka jiro ajendaha shirka. kulankii xalay ka dhacay gudaha garoonka diyaaradaha ee hotel Digaale ayaa waxaa lasoo sheegayaa inuu ahaa kulan hordhac u ah ra-iisul wasaaruhu la tashanayay saddexda hogaamiye iyo sida laga yeeli doono. sidoo kale waxaa la filayaa isla kulamadaas inay sii socon doonaan ilaa maalinta berri oo si rasmi ah shirka kaga furmi doono. imaanshaha labada madaxweyne Puntland iyo Hirshabelle ayaa la sugayay ila wareegyada qaarkood iyo xubno ku dhow xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa channelkeena waxay u xaqiijiyeen in qorshuhu yahay in 22 bishan oo maalinta Sabtida ah in si rasmi ah shirka kaga furmo teendhada Afisiyoni ee xeendabka xalale maadaama maanta Jimcaha gelinka dambe la qorsheeyay in Muqdisho ay soo gaaraan labada madaxweyne ee dowlad goboleed ee caasimada ka maqan Puntland iyo Hirshabelle. Khamiista oo 20 May ee ballantu ahayd ayuu shirkani furmi waayay uu baaqday sida xogaha aan ku helino balse xukuumadda ayaa sheegtay in dib u dhacan uu yahay mid farsamo. ila wareegyada qaarkood ayaa ku waramaya in madaxweynaha Puntland oo weli caasimada ka maqan iyo sidoo kale kan Hirshabelle ayaa la soo warinayaa in dib u dhacyadan ay sabab u yihiin. madaxweyne Saciid Dani ayaa weli ku sugan magaalada Nairobi waxaana la filayaa in uu halkaas ka soo tago soo gaaray Muqdisho. shirka ayayna u badan tahay in Sabtida uu furmo waxaana xogaha rasmiga aan helay sidoo kale xaqiijinayaan in shirkani lagu casuumay xubnaha saamilayda siyaasadeed iyo midowga musharaxiinta iyo ururada bulshada rayidka ay ka qayb gali doonaan maalinta koowaad ee furitaanka shirkan halkaas oo lagu casuumay in khudbado ay ka jeediyaan. wixii waray ka soo baxaa shirkana saaxiibayaal wararkeena dambe ayaan eegaynaa. ciidasaas ay tahay madaxweynihii hore ee Ghana wuxuu iska diiday xilka midowga Afrika ee gaar ahaan ergigan ay ugu soo magacaabeen Soomaaliya. Mohamed ayaa la sheegay inuu iska diiday in ergigan Soomaaliya loo soo magacaabo isaga oo diiday in Soomaaliya uu la shaqeeyo maadaama uu sheegay in Soomaalidu qudheeduba ay diideen. madaxweynihii hore ee Ghana John Mohamed ayaa warqad u qoray gudoomiyaha midowga Afrika uga laabtay aqbalaadiisa ahaa in uu noqdo ergeyga gaarka midowga Afrika ee xal u helista ismariwaaga dhanka siyaasadda. Mohamed ayaa warqadiisa ku sheegay in muhiimadda siyaasadda sare ay tahay in shaqada ah in la shaqeeyo oo aad noqoto ergey buuxa lagana taageersan yahay wadanka aad ka shaqeynayso. laakiin uu sheegay in Soomaalidu gaar ahaan dowladda federaalka ay diidmo kala hortimid. go-aanka uu qaatay John Mohamed ayaa yimid kadib markii dowladda federaalka ay kasoo horjeestay magacaabistiisa ayna sheegtay in xiriiro dhow la leeyahay dowladda Kenya saa darteedna uusan dhexdhexaad ka noqon karin. dowladda federaalka ayaa sidoo kale warqad u qortay gudoomiyaha midowga Afrika ku sheegtay in kulanka ra-iisul wasaaraha isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada Muqdisho ka dhacay uu yahay mid muhiim ah ayna sugaan in laga yaabo kaas heshiis rasmi ah lagu gaaro. John Mohamed ayaa warqad u qoray gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Muuse Faki Mohamed waxa uu ku sheegay in taageero la'aanta dowladda Soomaaliya ay halis gelin karto hanaanka loo igmaday iyo in sidoo kale wax badan uu ka qabto xaaladda Soomaaliya. Joe ayaa waxa uu sheegay in go-aanka uu qaatay kadib markii uu arkay in Soomaalida qaarkood ay asaga diideen. ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa channelkeena u sheegay in kastoo midowga Afrika aysan u diyaarsaneen waa in midowga Afrika waqtigan aysan u diyaarsaneen ergey kale lagu bedelo madaxweynihii hore Ghana ma cadda talaabada xigta midowga Afrika ay qaadi doonaan waxaase suurtagal ah in midowga Afrika ay sugaan natiijada soo bixi doonta oo ku saabsan shirka. magaalada Jowhar haddii aan eegno maalintii labaad ee booliiska sida gaarka u tababaran ee Haram Cad la yiraahdo ay sameynayaan howlgallo xilli magaaladaas ay ka dhaceen dagaalo u dhaxeeya ciidamada maamulka booliiska iyo maleeshiya hubeysan macmuuslaya. booliiska magaalada Jowhar ayaa howlgallo saacado badan qaatay ka sameeyay xaafadda Hanti Wadaag ee magaalada Jowhar ee Shabeellaha Dhexe ka tirsan. sida ay xaqiijiyeen howlgalkan ayaa mid lagu bartilmaameedsanaya ama bartilmaameed gaar ah ku socday ciidamada booliiska iyana si gaar ah kaga sameeyay xaafado kamid ah goobihii labadii maalmood ugu dambeeyay dagaaladu ay ka dhaceen waxaana lagu soo qabtay rag lagu tuhmayay inay ka mid yihiin maleeshiyada macmuusleyda ee hubeysneed ee ku dhuumaaleysanaysa deegaanka. ila deegaanka ayaa ciidamada ammaanka u sheegay in howlgalkan lagu baariyay guri ku yaala xaafadaha dadku ay degan yihiin waxaana la soo sheegay in jiro tuhunno la xiriira
in dagaaladu la qabyaaladeeyay lana sii wadi rabay dagaalada hase yeeshee ciidamada ammaanka ayaana la sheegay inay ka hortageen kooxdan macawisleyda oo qaab qabiil u abaabulan saraakiisha howlgalkan hogaaminaysa ayaa ciidamada ku ammaanay farena in gacanta ay kusoo dhigaan shakhsiyaadka hubka sharci darrada ku dhex wata magaalada Jowhar oo gacanta lagu soo dhigo magaalada Jowhar dhawaan waxaa ka dhacay dagaal geysa khasaaro isugu jira dhimasho dhaawac ciidamada ammaanka maamulka Hirshabelle maleeshiyaadka deegaanka ee ka soo horjeeda maamulkaas ayaan halkaas ku dagaalamay xubno mas'uuliyiinta madaxtooyada dhanka ammaanka u qaabilsan iyo saraakiil kale oo muhiim ah ayaana ku dhimatay dagaaladii Arbacadii iyo Khamiistii ka dhacay magaalada Jowhar wararkan ayaa ugu weynaa saaxiibayaal wararkeenii maanta waa nageyntaas.